Asalaamu calaykum dhalinyaro soo dhawaada oo macalin Maxamuud casharkan waxaynu ku baran doonaa tobankan erey meesha noo saaran. Ereyga koowaad waa invoke. Invoke waxaa la yidhaahdaa markaad u carartid, u dacwootid, u andacootid. Yes, for example haddaan dhaho she invoked the law, yani she appealed or she called upon to the law, yani sharcigay u cabat. Yes, sharcigay u qaylis si loo caawiyo, si uu caawiyo, si uu garabkeedu u istaago. Yes. Ereyga labaad waa jagged. Jagged waxay opposite ku ah smooth. Tusaale dhagaxa haddii uu yahay geesihiisa mid yani ka siman oo raaf aan ahayn, waxaan leenahay waa smooth. Haddii uu geesaha ka burbursan yahay oo yani girgir ka leeyahay, waxaan leenahay raaf ama jagged. Marka jagged waxaan u isticmaalnaa anything oo dhinacyada girgir ka leh, whether it's a glass, whether it's a stone or anything. Yes. Ereyga saddexaad waa janitor. Janitor waxaa la yidhahdaa qofka dhulka nadiifiyo. Yes, tusaale gurigan qofka dhulka tirtira nadiifiyo ka dhex shaqeeyo. Adigu shaqaalaha tirtiraha ah kaaba la yidhahdaa janitor. Waxaa kaloo dhihi kartaa cleaner. So feeling hadda la yidhaahdo the day of the jackal, aktarka waxaa waaye qaybtii soo horeysa wuxuu ka bilaabnaa isagoo janitor tirtire, then he kills someone. That's just a movie that I love. Ereyga afraad judicial. Judicial waa maxkamadaha walxaha la xiriir. Yes, anything related to courts. wax walbo la xiriira maxkamadda walxaa noocaas, sharciga iyo walxaa noocaas. Yes, judicial. Ereyga shanaad waa kettle. Kettle waa ibriq. Ibriq biyaa lagu kuleystaa la yidhahdaa kettle. Yes. Teapot haddaa dhahdid maadaama shaax lagu kariyo iyada laftirkeeda waa iska caadi. Yes, kettle iyo teapot waa isku micno. Ereyga lixaad lame. Lame waa qof curyaan, qof aanan socon karin. Yes, lame. So for example, if you have a problem with your leg, waxaan ku leenahay lame ayaa tahay, curyaan. waxaa kaloo curyaan lahaa cripple. Yes, qof aanan socon karin, cripple ama lame. Lame waxaa kaloo la yidhaahdaa tusaale qof markuu fikrad kuu keenayo ama excuse ama adigu wax un markuu kuu soo jeedinayo, waxa uu kuu soo jeedinayo ay yihiin wax daciif ah ama uu kuu soo jeedinayo wax cadeymo daciif ah oo aan la aamini karin, waxaan leenahay that is a lame evidence or that's a lame excuse. Yani qiilkaaga waa mid daciif ah. It's not convincing me. Yes. Ereyga toddobaad liable. Liable waa wax aad mas'uul ka tahay. Yes, tusaale haddii you are liable for the damage, adiga mas'uulka ah burburkaas. Dhibaatadaas walxaas la burburiyay, adiga mas'uulka, yani sharciyan adiga lagu xiray, adiga lagu qaban. Yes, you are legally responsible for that. Makes sense? Ereyga siddeedaad limp. Limp waa luga. Yes, limp. Limp waxaa kaloo la dhihi karaa taas waan u dhahnay lower limp oo lugaha ah, upper limp oo gacmaha ah. Limp waxaan kaloo dhahayaa dhutin. Yes, qof markuu dhutinayo iyadana waa limp. Weliba hadda tan waa dhutin maxaa yeelay before pain ayaa meesha saaran limp. So my friend began to limp after he injured his leg. Lugta markuu dhaawac ka soo gaaro wuxuu bilaabay inuu dhutiyo. Ereyga sagaalaad waa linguistic. Linguistic waa wax walbo la xiriira luqadda. Anything related to language. So haddaan ku dhaho you are linguistically handicapped, yani luqad ahaan curyaan baa tahay, yani luqadaada way liidataa. Marka linguistic waa anything related to yani luqadda walxaas. Haddaan ku dhaho he studies linguistic theory, waxaa jaamacadda wuxuu ka bartaa theories related to language. Yes. Local ama local. Local waxaa la yidhaahdaa qofka ereyadaas yani u saaxiiba. Yani either he's from that area, he works at that area, he lives at that area or anything like that. Ama haddaan ku dhaho it's a peaceful local ama local waa area degan. Local marka waxaa anything related to that particular area, that particular place. I hope you have learned something. Until next time, stay safe.